سماعات في كمبيوتر في نوع مبني كلمة حلو بعضنا كلاي فيسكين كمبيوتر فيسكين استعمال هاي هذا هم كمبيوتر نقطة هذا لو كمبيوتر نقطة هذا سر كمبيوter نقطة أي استعمال دون مركز سنة إحنا نكون في دون أساس كا أنت هنا قبلنا فرانك كمبيوتر كنا أي نكون حساب تبي دونا نيو بارنا دونا فعل عصبانو بعهنا كده بنا حنو بحن دونا تصال هانو كله إن لا يدا هذا إن بي سي إن 21 oo kala loo baxay computerkayga waxaan u bixiyay PC 21 sidoo kale operating system aynu ku shubano waxaan ahay waxa weey Windows 7 next weyn oran doona halkan CS-ka wuxuu ka soo qaataa waa RAM-ka memory-geena soo sama halka GB soo ha kun MB soo sama waxaan leeyahay marka 20 haduu haysto macnaheedu waxay tahay walaal 20,000 ayuu haystaayo ama 2,000 buu haystaa iyo 48 waxay u taagantay 2 GB memory-geyga marka haddaan doonayna ka yareeyo dhankaan wadaya sheekh dhankaan wadaya 1 GB xoogaa baan ka dhigay kadibna next baan leeyahay sheekh kadibna hard disk-geena virtual-ka waxaan leeyahay isagana waxaan ka isticmaalaya tusaale ahaan kale 2 GB ayaan u baahanahay in isticmaalo create baan leenahay hal inoo sameeyo shayga kadibna waxay leenahay next maxaa ku xiga kadibna next baynu oran jirnay sidoo kale halkan iyadana hard disk-geena inta ka isticmaalay oo 2 GB konta GB oo ka isticmaali karaa hadba waxaan isagana ku saleynayaa inta computerkaygu hard disk haysto anaga create baan leeyahay sidaas ay inoogu sameeyay waxa la inoo sameeyay computer la yiraahdo PC 21 soo sama computerkan waxaan tagi doonaa hal ama star baan oran doonaa laba jeer haddaan ku dhufto on star iraahdo waxay noo soo bixi doonaa in uu ina weydiiyo ajalada ama option-ka uu qaadanayo halkan inooga furmi doonaa okay inoo furmay halkan markuu soo saaro wuxuu leeyahay maxaad ku shubaysaa operating system maxaad ku shubaysaa waa kee halkan uu gujin doonaa kadibna waxaan ku shubanayaa kan ay ku qoran tahay Windows 7 professional computerkayga waxaan doonayaa inuu igu jiro gudihiisa Windows 7 kadibna waxaan leenahay start sheekh saahay shaqadiisu bilaaban doonaa waxa hadhay in tirada u tiriyada view bay leenahay scale mode baan leeyahay si uu cabirku yar weynaado okay halkaan asaas doonaa marka culayskani maraya mid kale maaha waa xagga RAM ku leeyahay space fiican haystaa marka haddii ka leeyahay culayskaas ay ugu yimaado ونوصل ساعة كدبنا حلينا حروب أهنا محي نجس سو سامع كدبنا محي دورة جنة install now سو سامع هنا options اللي هي هي location كلنا وش بيه كمبيوتر كنا كدبنا accept الليست كنا نلعبه كدبنا دي اللي سيجاي marka ku shubeysa haduu ku soo qabanay waxaad sameyn virtual aan ku dhex noqdo waxaan tagi doonaa halka settingsku ku qoran tahay way garanaa soo saamaxay settingay tagi jirnay kadibna waxay sii dooran jirnay settinga marka tagna dicajiradii marnay soo saamaxay halkii dicajiradii marnay ayaan leeyahay waxaan tagi jiray storage halkan ku qoran kadibna waxaan oran jirnay halkan adiga empty bay marka hore sida default-ga kadibna halkii yar bay ku jirnay daaqada soo saamaxay مليلا halkan aynu gujin jirnay kadibna waxaan leeyahay choose disk file kadibna waxaan soo dooran doonaa Windows 7 ka halka ka yaalo gudaha computerkayga ugu baahan halkan okay wuxuu ugu yiri liisankaaga miyaad accept garanaysaa inaan isticmaalo baan leeyahay next baan leenahay okay custom iyo upgrade bay noo jiro maxay dooran jirnay custom soo saamaxay kadibna waxaan leenahay waxa noo sameeysaa
next halkan noogu shub tirada kadibna waxay noo bilaaban doonaa tiradiisii 1 ilaa 100 dan waxa ku xigaya in akoonkeena password aynu samaysano ama aynu bilaa password ku galno kadibna gudahaynu geli doono markaas shaqada ku xigta qabanna markaa tiradiisa iska bilaabo hayno yar buu iska reesnaatay intaas dekay la boqolkaas inaan tirin way halkan inoo soo saaray wuxuu leeyahay computerkaaga maxaad magaca ku haysaa username-kaaga tusaale ahaan kale magaca doonaysa computerkaaga oo sheeg waxaan leeyahay tusaale ahaan kale si aan u xasuusto waxaan ula baxay BC2 iyo kale maybe BC2 aan haystay aan iraahdo alpha intaas aan ilaawo baafrey okay marka maxaa ku qoran alpha minus BC soo sama username-keena iyo ilowna markii dhawey taas oo okay next baan oran doonaa sheekh maxaa ku xigay kan wuxuu yiri waxaad u baahan tahay password inaad samaysato wax password uma baahni ma leeyahay iska dhaafi next baan oran doonaa product-kiiga ma haystaan leeyahay next okay kadibna waxaan oran doonaa use recommended settings waxaad isticmaashaa kuwan adoo aad jeceshahay kadibna date-ka si aanu saxno haddaynu saxnayna waa sax haddii kale iska dhaafi next baan oran doonaa kadibna waxaan isticmaali doonaa network public network baan isticmaali doonaa kadibna sidaas ay ku dhamaan doonaa use recommended first intan markii noo dhamaado shaqada inooga xigta waxay tahay in computerka IP address-ka siino ee doonayna saan la xiriiro very honest, so we will reach the high of the area. markaas aynu bedelo hadda waxa tagi doona control panel network-in si wax uga bedelo okay control panel kan tagi doona kadibna waxaan ka sii dooran doonaa halkan ay ku qoran tahay network aniga control panel kadibna waxay leedahay waxaan u baahanahay network-ga iyo internet-ku sida u shaqeeyaan intan markaynu samayno kadibna waxaan leeyahay waxaan u sii baahanay network-ka joog waxaan uga sii baahan waxaan sii dooran doonaa network-iskaygu ii diyaarsan yihiin markaa waxaan odhan doonaa connected to network waxaan u baahanayaa network ku xidhiidhsamo kadibna halkan aan kasii dooran doonaa okay connect uma baahni sorry let me okay network aan share center baan ku dhufan doonaa sorry network aan share center baan ku dhufan okay halkan inoo furay kadibna wuxuu nagu yiri waxaad u baahantahay kan waa computerkeena magaciisa soo saama halka waxa inoogu qoran local area connection soo saama halka let's wait okay right local area deena markuu inoo soo saaray halkan uu inagay waxaan oran doonaa waxaan u baahanahay properties-kiisa network-ga astaamihiisa kadibna halka waxaan ka dooran doonaa kii hore xageeyay ka soo bedelay internet protocol version 4 soo saamahay halkii aan tagi doonaa properties baan oran doonaa waxaan oran doonaa marka waxaad isticmaashaa use waxaad isticmaashaa flow IP address kan soo socda kadibna waxaan siin doonaa 10 okay boqoliyo koob baan qoray 10.0 kale dot maxay waba misato waa tuu soma server-ka ileen soo siinay waan soo saamahay halkan si automatic 255 bay qaadataa halkan waxaan leeyahay DNS kula xiriiriyo okay server muxuu haystay 10.0 kale
kadibna word soo saama marka DNS ka doonayna ama domain ka doonayna la xiriira wuxuu sitaa IP address-ka sidaas right okay bay leenahay markaynu labada computer inta shaqadooda qabanno shaqadii noogu xigi jirto waxa ahayd inay isbiin gareeyaan iskaari karaan soo saamahay close bay noo doonaa kadibna iska soo xiri doonaa Windows plus R haddaan taabto de run command soo saari jirtay soo saamahay waxaan leeyahay waxaan u baahanahay CMD ga shaashada madow sheekh kadibna waxaan leeyahay ping waxaad ii ping gareysaa computerka 10.0.0.1 oo serverkii inaad gaari karto ayaan u baahanay maadaama isku kalaastiin inta haddaynu idhaahno maxay nagu yidhi xogtii uu soo celin doonaa maxay nagu yidhi request time out destination host aan xisaama reach macnaheedu waxa weeye IP address-ka sheekh noogu yaala ma gaari karno si aynu xalino serverkeena waxaan ku noqon doonaa virtual box-keena kan waa virtual box-keena computerka dushiisa istaagi doonaa PC21 kadibna waxaan leeyahay setting-giisa u baahan in wax ka bedelo okay xoogaa culays baa yar jira okay waxaan leeyahay markaa waxaan u baahanahay hadda network aan doono halkan haddii la arkayo NAT by not door soo saama halka yar baan gujin doonaa sheekh kadibna waxaan ka dhigan doonaa bridge adapter NAT buha waxaan ka dhigay bridge adapter server kale saas oo kale inuu ka soo dhigi doonaa isagana gudihiisa tagi doonaa waxay tagi doonaa setting-giisa kadibna network-giisa tagi doonaa server-kayga alpha la yiraahdaa setting-giisa tagi doonaa isagana waxaan dooran doonaa halkan ay ku qoran tahay network kadibna isagana waxaan ka soo dhigaynaa bridge adapter soo saama labadooda waxaan ka dhigan doonaa bridge adapter intaan markaynu samaysano okay bay leenahay seen u biin garayno Windows 7 keena aynu ku noqono intii markii dhaweed aynu qornay dib aan u qoro ping baa la waxaad gaadhaa computerka sita numberka hadda maxay nagu yiri وصحيح سما أفر فريمات بندري أفر تيبي ويقال سو سما سنت وفور ريسيفر كينا وفور لاستنا وحبا مولد معني إنه حشاقية لابد كمبيوتر كوميونيكيشن كود شاخة واضحة ولا مستري مرحبا انت هاسي نورا مسترانت هاي بحين تجي دونا كمبيوتر كينا هل كان تجي دونا كدبنا دور اوبشن بان هايستا كمبيوتر كرايت كليك بان اوران كرا كدبنا waxaan leeyahay waxaan u baahanay properties-kiisa ayaan u baahanay halka wuxuu noogu furay computerkeena wuxuu nagu yiri memory-gaaga isticmaalaysa RAM-kaaga waa imisa maxay 135 ka soo dhigay soo saamahay kadibna waxaan leeyahay waxaan u baahanahay computerkaaga horta wuxuu ka diiwaan gashay buu guri wuxuu ku jira wo group wax loo yaqaan soo saama halka wo group waxaan doonayaa in uu isku bedelo domain-kayga ku beegi doono waxaan leeyahay change settings waxaad bedeshaa sidan uu shaygu sameeyay ama setting-giisa wax ka bedeshaa waxay nagu yiri maxaa doonaysaa inaad bedesho waxaan oran doonaa change bay sii doonan jirnay halka waxa ka bedeli meena computerka magaciisa waxaan leeyahay change samee halkan waxa ay dooran laba option oo imika computerkaygu wuxuu ka diiwaan gashay yahay wo group soo saama laakiin waxaan doonayaa inuu ku biiro domain sheekh inuu domain inoogu biiraan rabaa option kan tigta saaran doonaa halka waxaan leeyahay domain-kayga ku biiraya waxa la yiraahdaa alpha.com domain-kayga waa DNS active directory-ga server-ka inooga sameysana marka domain-kaagu magaca uu yahay ayaad ku biiri doontaa adigu gudaha computer-kaaga markaad gasho active directory-gaaga aad joogto ama server manager-kaaga waxaad ka arkaysaa halkan inuu kugu qoran yahay domain-kaagii aad soo samaysatay alpha.com baan leeyahay kadibna waxaan leeyahay see u shaqeyso okay noode okay baan leeyahay maxayna soo weydiiyey username-kiyo password-ki soo saama suumtana iska xidho badan ka arki maysaane maxay weydiiyey username-ki iyo password-ki kuna weydiinaya ku administrator sheekhow halkan sare waxay noo qaadan jirtay maxay
administrator soo saamaxeen administrator halkan da hoosena waxaynu gelin jirnay passwordkeena marka aniga passwordkaygu tusaale ahaan waxa alpha/act inter haddaan idhaahdo wuu hubin doonaa in uu ab gani sax yahay haddii alfada eedaa ugu horeysaan small ka dhigo ma shaqeynayo wuxuu gu yidhi welcome to alpha.com domain waxaad ku soo dhawaataa magacii alpha.com domainkiisi inaad ku biirtay ku soo dhawow way okay bay leedahay waxayna guri computerkaagu wuxuu u baahan yahay start soo saamaxeen way okay bay leedahay kadibna kuwan oo dhan iska wada close baan odhan doonaa kadibna waxaan la odhan doonaa restart now hadda dib isku soo yeesho si aan ku aragno wixii isbedelay samaysay وينو soo kici doonaa kadibna optionska caadiga marka hore computerka uu la ku xidhay wuxuu oran jiray lock ba ku xidhay soo saamaxay laakiin hadda wuxuu noola dhaqmi doonaa maadaama server ka diiwaan gashay yahay wuxuu oran doonaa control alt iyo delete ayaad ku furi kartaa intaana waxa lagu furi jiray wixii server soo saamaxay ka soo kac aynu sugno marka uu sugi uu soo kici doonaa si automatic marka user-kiisa ka soo sameyn doonaa directory kadibna user-kaas isticmaalo waxayna weli maxay tahay control alt iyo delete soo saama intii hore taaban jirnay bay taaban doonaa kadibna wuxuu leeyahay kadibna halkan hore waxa ku soo biray alpha bc waa magaceena hore la baxnay soo saama halkii dib maxaa ka galay slash forward slash backslash backslash soo saama marka backslash alpha wax password oo mu lahayn baa leeyahay computerkaygu sida ay ugu gelishaa هذا كمبيوتر كده إنه كده ما بشيء هاي بمين كلا يراهده alpha.com سو سامع شغال الدوري أنا قبتها كلا واحد هاي هل كان هراء هذين حسوسنا سيد users كلا سمين شيء ولا حسوسة سو سامع هاي users كسي لو سمين شيء ولا حسوسة أوكي administrator كده إني بقول تونا alpha/act waxaan tagi doonaa halkan ay ku qoran tahay tools soo saamaxay waxaan tagi jirnay kadibna active directory users araxaga la socdo hoy culimo way samayn doontaan waxaan tagi jirnay active directory users and computer soo saamaxay active directory users and computers been dalbanay inoo yar wareegaya xoogaa culays buu tirsanaya let me wait okay wuu inoo soo furay okay ay halkan maxaynu ka arkaynaa computerska way noo bari si caadiga ah marka hore خانة كمبيوترز كم فولدر كان كمبيوتر ده نقول ديما قلنا سيدا default فيها وينو مريه حد بحين يقولوا حد يكون صابير كمبيوتر لا هذا alpha bc سو سامع واحد تيجي دونا هل كان users كيجي سنا سو سامع هن users بين هاي
tusaale ahaan oo kale user kan la yiraahdo boss oo kale doonaya inuu soo galo ama user baa samaysan kara iyadana waa option laakiin kan boss baan istaagi doonaa passwordkiisa sheekh hadaan xasuusan right click baad oran kadibna waxaad oran doontaa maxay reset passwordka ka saar baad oran kadibna password cusub baad u samaysan tusaale ahaan oo kale alpha baan leeyahay /act ku kala leeyahay isagana samee alpha/act inta ku xidhan password wuxuu yiri has been changed soo sama user kan halku inooga sameeyay sheekh domain soo sama maadaama domain kayga sameeyay yahay computerkayga labaad ee PC2 21 ayaan geli doonaa halkan iska istaagi doonaa startiisa waxaan oran doonaa halkan istaagi doonaa kadibna waxaan oran doonaa switch user kan iga xashaa kan aan ka xidhay waa kii defaultiga ahaa ka soo baxay ee noo sameysnaa markii hore control iyo delete baan oran doonaa kadibna waxaan leeyahay alpha bc ma rabo inaan galay waxaan rabaa other user kala doonay kadibna waxaan leeyahay user keena waxa la yiraahdaa boss baa la oran jiray passwordkiisuna wuxuu ahaa alpha/act وقال كلام مركا حين صاب بغضي يوسر كلا يراهدو بوس با سو غلاي كمبيوتر كي مسكا فودو تاس شقه بدن مينا قان هدا markii ugu horeysay marka computerka markasta ugu horeysa operatingka waxa loo sameeyay desktop loo yar diyaariyaa kadibna uu soo galay halkan hadaynu eegno user name ku jira waa kuma boss soo sama haday user kale soo sameeyay direct user computerka isaguna geli kara mid kale haday soo sameeyay isaguna geli kara ku kale haday soo sameeyay uu geli kara user ka soo sameeyay halkan leeyahay domain ku yeelinay domain labaad ee toos ay taas sameeyay server كيسي إسقى لو بدلي ما لحسوس إسقى ترى أي بيجي server كيقول بدلي أوكي أي simple ده إسقى شيخ مو بدناي هل كسيرفر manager كمركو يناصر قاعد واحد يدورني هل كان local server يكون برات server manager كمركو يوصل قاعد local server بعد دورنا سا كده من حد دورنا سا هل كان أي بيعد ليش يوصل عليك هل كان حد كان إنترنت قاعد في ساسوما كانت جري تونتا كان مرة تقول فاتو وحين نوصل بحياة إنترنت. كان يدور يستخدم حنا هنا رايت كليك سو سامي هاي. كده بنعمل حين دورين إني properties. properties كمان حين دورانو حين دورين إنترنت بروتوكول version 4 سو سامي هاي. سجنا حلا يحنو بحنا الحين properties كيسيتي سو سامي هاي. كده بنعمل حلا هاي. مركب هرب فهايستا optable haysta waxaad ka dhigan doontaa option kana dooran doontaa use flowing IP address kadibna waxaad siin doontaa labadan IP address halkan sare kan baad siin doontaa xagga 1 halkan waxaad ka dhigan doontaa DNS kiisa inuu isaguna yahay IP ga xagga sare serverka soo siinay inuu nabid yahay okay baan oran shaqadu saas ku dhantay oo markii niyude